بسم الله الرحمن الرحيم وزير آد يا دوما سنتاي مرتي شرفتا iyo madaxda golaha wasiirada dadka xildhibaanada iyo dhammaan dadkan Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid iyagoo ka tashanaya ayaha ummadda Soomaaliyeed horta marka hore waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad wasiir waxaan aad kaaga mahad celinayaa adiga iyo wasaaradaadaba shaqada aad qabateen oo ah inaad dad Soomaaliyeed isu keentaan si looga tashado ayaha ummadda Soomaaliyeed looga tashado mustaqbalka iyo danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu bogay hal ku dhiga ah isku daalnay maxaa inoo dana annagu inaan isku daalnay ma garanayo laakiin waxaan hubaa horta dalku inuu daalay laakiin haddii in la isqabqabsado waxay dhaantaa horta in la kala tago marka intaan weli isku soo laalaabanayno intaan isku daalanahay intaan tashanayno intaan isu imaanayno waxaan aaminsanahay waxaa muuqata rajo rajadana waa tan ay maanta ka muuqata halkan dad Soomaaliyeed oo isaga yimid meel kasta oo leh aqoon kala duwan inaad isu timaadaan oo aad dibdhig u samaysaan dib u heshiisiinta dalka oo bilow ah waxaan aad uga mahad celinayaa qof walba oo ka soo qayb galay waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda ka soo shaqaysay arrinkan waxaan rabaa inaan laba eray halkan ka iraahdo marka hore waxaan idinkugu imid inaan idin soo salaamo idinkaga mahad celiyo shaqada aad qarankiina u haysaan waajibna idinku ah muddadii yareed oo aan joognay xafiisyada dawladda aniga iyo madaxweynahaba waxaa muuqata laba arrin mid waxa ay tahay in ay jirto fursad aad u wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay fursadaasi oo ah in maanta ay dhalinyarada ganacsatada culimada aqoon-yahanada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kulligood u soo istaageen in dalka dib loo dhiso fursadaas jirta ayaa waxaa la rabaa marka in looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed mid waa marka inay fursad jirto arrinka labaad oo aragnay oo khibradda ah waxa ay tahay in caqabadaha hor yaala aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo labada aqal aanay kaligood ka soo dhalaali karin in dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isu yimaadaan gacanta wada saaraan hal meel oo qarannimada hore loo wada riixo waa noo soo baxday sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan hortiina ka qirto inaan kulligeen idin wada baahanahay si aan qarannimadeena dib ugu yeelano intaas ka sokow waxaad halkaan isugu timaadeen inaad qeexdaan ama la fagurtaan oo aad talooyin ka geystaan khilaafka soo daashaday dalka iyo dadka Soomaaliyeed annagu marka aan isla joogno waxaa noo muuqataa inaan kala duwannahay waxaa noo muuqataa inaan gobollo ka duwan ka kala nimid inaan qabiilo kala duwan ka soo jeedno inaan xirfado kala duwan leenahay waxaa noo muuqataa kala duwanaansho yaryar oo ah waxaana kala qoqobay intaasoo sano adduunyadu markay noo jeedo waxay u jeedaa inaan isku midnahay kulligeen waxay u jeedaa inaan kulligeen isku jinsinahay isku egnahay isku qaab u soconno isku dhaqannahay isku diinnahay isku afnahay waxay la yaaban yihiin marka sababta dalkeena uu dagaal uga jiro sababta dalkeena isfaham waa uga jiro sababta dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay uu siiyay dhulkan barwaaqada ah dhulkan badda iyo beriguba uu barwaaqada yahay sababtay u gaajoon yihiin sababka dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay diintan uu siistay ay u fahmi waayeen diintooda isku leynayaan sababta dhulkan weyn oo kulligeen si buuxda haddaan u wada noolaano naga badan aan weli u dareemin lahay in dhulka aan haysano uu nagu filan yahay sababta dhulkeena khayraad ka buuxo iyo baddeena aan uga gaajoonayno laga yaabana khayraadka dhulkeena iyo baddeena ku jira in 20 ama 30 sano kadib adduunyaduba ay ka baxdo oo la soo saaro wax kale oo looga marmo khayraadkaas annagana gaajo aan uga dhimanay intaas ay la yaaban yihiin sababta dadkiinan halkan isugu yimid aadan u garanaynin haddii maanta la idin yiraahdo maxaad isku haysataan maxay Soomaali isku haysataan maanta waxaad isugu timaadeen inaad qeexdaan la fagurtaan ka shaqaysaan
sida loo damin lahaa khilaafka haysta ummadda Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan meel walba oo dalkan ka mid ah ma is haystaan, wax iskuma diidana, ma isfahmi la. cidda wax isku haysata ama isfahmi la ama khilaaf uu ka dhaxeeyo haddii uu jiraba waa dadka halkan fadhiya, waa madaxda qaranka, waa siyaasiyiinta, waa dadka eliitka ah waddankan u sarreeya, ama ganacsato ha ahaato ama ha ahaato madax kale ama siyaasiyiin ha ahaadaan. gabadha iyo wiilka gaalkacyo joogta ama Kismaayo joogta ama Luuq joogta dagaal isuma qabaan, isma necba, dowladnimo way rabaan, dalku inuu hore u maro way rabaan, in la heshiis ahaado way rabaan oo adduunyada la tartano. cidda is haysata waa annaga, cidda la rabo inaan heshiino si dadkaasi ay nolol fiican u helaanna waa annaga, cidda laga rabo inay Soomaali tusaalayso sida dalkan hore loogu mari lahaayna waa idinka. inaad isu timaadeen waa ku faraxsanahay, laakiin waa inaad ogaataan mas'uuliyadda ay xambaarsan tahay isu imaatinka aad isu timaadeen oo halkan u fadhidaan. waxaad halkan isugu timaadeen inaad tusaale ka noqotaan sida ugu fudud oo lagu bixin karo taladii dalkan dib loogu xasilin lahaa. eeg, dowladnimadii way muuqataa, rajadii ummadda Soomaaliyeed way muuqataa, shacabkii iyo dowladdu way isku xirmi rabaan. dadkii Soomaaliyeed waxay dareemayaan inay tartiib ahaan karaamadii ummadda Soomaaliyeed u soo noqonayso. khasaaraha ugu badan oo na hor yaalla oo dembi nagu ahaan doonto, taariikhduna ay qori doonto, ma aha aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada, kulligan waxa ay tahay haddii aan fursaddan uga faa'iideyn weyno ummadda Soomaaliyeed. qof walbo naga mida waa inuu ogaadaa mas'uuliyad ayaa ka saaran dalkan sidii loo samata bixi lahaa. haddii aad idinku isu timaadaan intan in kale ay u yeerato, dadka la tusaaleeyo, iskhilaafka iimaan lagu bedelo, waxaan aaminsanahay dalkan inuu rajo leeyahay. waxaa kaloo muhiima inaan ogaano haddii dalkeennu uu xasilo, kulligeen nolosheennu intaan way ka wanaagsanaanaysaa. haddii dalkeennu uu hagaago, carruurteennu waxay helaysaa waxbarasho, isbitaallo, nabad, adduunyaday la tartamayaan. laakiin haddii inteenan magaalada xamar ku nool oo hadda halkan joogta, haddii jidka aan marnaba qoryana laku ilaalinayo, haddii aanan habeenkii socon karin, haddii markaan xanuunsanno aan isbitaal tegi karin, haddii dhaqaalaha aan samaysanno meel aan kula noolaano aan haysan, nolosha ka xun taas maxay tahay? waa maxay nolosha taas ka xun? intiinan halkan fadhida waa intii laga rabay inay jiilka ka dambeeya Soomaaliyadan ka wanaagsan u gudbiyaan. inteenan halkan isugu timid waa inteenna ku saakhiday inaan dhisno Soomaaliyada xaqana la kugu leeyahay. miyaan isku diidanahay taas? inteenani ma nahay iyo inta nagu da'da ah oo naga maqan inaan nahay intii ku saakhiday inaan dhisno Soomaaliyada xaqana la kugu lahaa. waxaan idiin sheegayaa, idinkugu bishaareynaya 75% ku dhowaad haddaanayba intaas ahayn, dadka Soomaaliyeed waa dad ay da'doodu ka yar tahay 30 sano. waxaan idiin sheegayaa marka arrinkaasi waxa uu ka turjumayo, waxa uu ka turjumayaa kow, si aan adduunyada ula tartanno inaan haysanno fursad aan kula tartanno, inaan leenahay dhalinyaro 75% ka ah dadka Soomaaliyeed tiradoodoo dhan. waxa ay tahay fursad weyn oo dalkani uu rajo weyn ku leeyahay in dib loogu dhiso. laakiin in 75% ay dad da'yar yihiin waxa ay leedahay khatar weyn. khatarta ay leedahay waxa ay tahay haddaanay lahayn jaamacad ay dhigtaan, marka ay jaamacad ka soo baxaan aanay shaqo helayn, haddaanay dalkooda rajo ka arkin. waxaa badanaya dagaalka, waxaa badanaya musuqmaasuqa, waxaa badanaya badaha ay carruurteenu ku dhacayaan. si taas aanay noogu dhicin marka
dadkaas dhalinta yar cidii laga rabay inay gacanta u geliso Soomaaliya ka wanaagsan tan maanta aan ku jirno soo idinka ma ah soo annaka ma ah soo kulligeen ma ah waa inaan isku daynaa marka inaan bilowno jidkii lagu dhisi lahaa Soomaaliya ka duwan Soomaaliyada maanta aan joogno isku daalnaya maxaa inoo dana waxaa inoo dana inaan isu dul qaadano waxaa inoo dana inaan Ilaahay u noqono waxaa inoo dana inaan Ilaahay cafis weydiisano waxaa inoo dana inaan aqbalno dalka inaan wada leenahay waxaa inoo dana in danta guud laga hormariyo danta gaarka waxaa inoo dan ah in qarannimada laga hormariyo qabyaaladda waxaa inoo dan ah in kala cabsashada iyo beenta aan ku bedelno inaan waji furan isugu nimaadno runtana isu sheegno waxaa inoo dana inaan taariikhda mugdiga ahayd oo na soo martay ku dhowaad 30 sano aan ku bedelno taariikh kale waxaa inoo dana inaan aqbalno in Soomaaliyada maanta aan haysano ama wadankan annagu aan haysano uu yahay dalka kaliya oo aan leenahay dal kale meel nooma jiro dalkeenni waa kan dadkeennina waa kuwan meel walbood adduunka soo martid marka ugu dambaysa dalkaada ku soo noqonaysa si dalkeennu u ahaado marka dal wanaagsan cid inoo dhisaysa oo kale ma jirta innagu waa inaan dhisannaa si marka aan dalka u dhisano oon xooggeenna isugu geyno haddii khilaafaad uu jiro waa inaan isu nimaadnaa oon heshiinaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo annagu albaabadeennu waa furan yihiin diyaar ayaan u nahay inaan idin dhegaysanno laakiin idinkana mas-uuliyad baa idin saaran ugu dambayntii waxaan rabaa maadaama aad halkan isugu timaadeen maadaama dalkeennu ay soo dilootay dagaallo badan iyo khilaaf maadaama maanta ay rajo ay muuqato maadaama iftiin yare uu muuqdo waxaan rabaa inaan aniga iyo golaha wasiirada iyo madaxweynahaba inaan iskula dardaaranno inaan maalin walba xasuusnaano mas-uuliyadda aad noo dhiibateen inay tahay ammaanad idinku aad noo dhiibteen waan diyaar u nahay inaad nagula xisaabtantaan maalin walbood rabtaan inaad nala xisaabtantaanna waxaan diyaar u nahay inaan idinla fadhiisano idinka waxaan idinkula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed iyo dalku waxa uu ka kooban yahay dad idinka ah walaalihiina caruurtiina ah saaxiibadiina dadka Soomaaliyeed waa dad aad u yar oo isgaranayo kulligood waa inaad dhidibada u aastaan sida dadka la isugu keeni lahaa kuweenan siyaasiyiinta madaxda ama kuwa hadda aan xukunka joogin waxaan kula dardaarmayaa haddii aad rabtid Soomaaliya inaad berito madax ka noqotid waa inaad ka sii shaqaysaa dalkii aad madaxda ka noqon lahayd haddii aad rabtid inaad u timaadid kursi aad berri ummadaada ku maamusho waa inaad sii bilowdaa dhagaxyadii lagu dhisi lahaa inaad sii dhistid waxaa muhiima in la isu dulqaato la ogaado adduunyadu inay nala yaabtay caruurteenna ay badaha ku dhacayaan dalkeenna isagoo khayraad ka buuxo ummadeenna ay gaajo u dhimanayaan